madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo wafdu hogaaminaya ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii dalka Belgium kaga soo qayb galeen shir looga hadlay arrimaha Soomaaliya oo magaalada Brussels ka dhacay. Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa waxa garoonka ku soo dhaweeyay madaxweynaha iyo wafdigu hogaaminaya oo ku jiraan xubno wasiir iyo xildhibaan ah. Inta uu ku sugnaa madaxweynaha Soomaaliya dalka Belgium wuxuu kulamo kala duwan la qaatay madaxda caalamka oo shirka goobjoog ka ah iyo jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Belgium. Shirka lagu soo gabagabeeyay magaalada Brussels ee dalka Belgium ayaa waxa Soomaaliya loogu yaboohay lacago ka badan 500 oo milyan taasi oo Soomaaliya ay ugu deeqeen wadamada shirkaas ka qayb galayay. Abshir Muuse, SABC TV, Muqdisho.